bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum. kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Sergio Kun Aguero oo magacaabay saddexda kooxood ee ugu cadcad ku guuleysiga tartanka Champions League. Erling Haaland oo dhaliyay goolal ka badan 72 kooxood oo ka tirsan shanta horyaal ugu weyn qaaradda Yurub. Pierre-Emerick Aubameyang oo tababarka la qaaday xidigaha kooxda Chelsea. qodobada kale ee barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah tababare Pep Guardiola oo ka hadlay fursadaha Walker iyo Stones ee kulanka caawa. Liverpool oo haatanba dooratay xidiga ay u dhaqaaqi doonto suuqa January. Raheem Sterling oo isku qoray taariikhda Champions League iyo xidigaha hore u dhigay rikoorkaasi. barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhesina share garaysi barnaamijkana asxaab badan u gaaro. mahadsanidina. xidigii hore ee Manchester City Sergio Kun Aguero ayaa magacaabay saddexda kooxood ee ugu cadcad ee ku guuleysiga tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. waxaa caawa si rasmi ah loo bilaabi doonaa tartanka ugu xiisaha badan ee adduunka, iyadoo koox walba nasiibkeeda ay ku tijaabin doonto xilli ciyaareedkan. sida caadiga waxaa jira kooxo bilowga tartanka loo saadaaliyo inay ku guuleysan doonaan sabab la xiriirta awoodda ay leeyihiin iyo xidigaha ay haystaan. haddaba Sergio Kun Aguero ayaa markaan saadaaliyay saddexda kooxood ee ugu cadcad ku guuleysiga tartanka Champions League. Sergio Kun Aguero ayaa kooxaha Manchester City, PSG iyo Tottenham u saadaaliyay ku guuleysiga tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Manchester City ayaa sidoo kale ah kooxda ugu cadcad sabab la xiriirta qaab ciyaareedka uu ku jiro Erling Haaland, waxaana ugu dambeyn Manchester City ka caawin karaa inay ku guuleystaan tartanka Champions League. ugu dambeyn koox walba uu Lionel Messi u ciyaaro waa inay tahay kooxda ugu cadcad ku guuleysiga Champions League, ayuu yiri xidigii hore kooxda Manchester City ee Sergio Kun Aguero. dhanka kale xidiga kooxda Manchester City Erling Haaland ayaa wacdaro ka dhigaya xilli ciyaareedkan horyaalka English Premier League isagoo dhaliyay 10 gool, wuxuuna ciyaaray 6 kulamada ugu horeeya ee horyaalka English Premier League. xidiga reer Norway ee Erling Haaland ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku jira kadib markii uu ciyaaray 6 kulan oo Premier League. arinta la yaabka leh ayaa ah in Erling Haaland uu dhaliyay goolal ka badan kooxo badan oo ka mid ah shanta horyaal ee ugu weyn qaaradda Yurub kulamadii ilaa iyo haatan ay ciyaareen. Erling Haaland ayaa dhaliyay goolal ka badan 72 kooxood oo ka tirsan shanta horyaal ee ugu weyn qaaradda Yurub ilaa iyo haatan ee xilli ciyaareedkan. 13 ka mid ah kooxaha Erling Haaland ka gool badan yahay waxay ka ciyaaraan horyaalka English Premier League, waxaana ka mid ah Chelsea iyo Manchester United. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa tababarka la qaaday xidigaha kooxda Chelsea. xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Chelsea ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa tababarka buuxa la qaaday kooxdiisa ka hor kulanka caawa Dinamo, kulan ka tirsan tartanka Champions League. xidiga Aubameyang ayaa maalintii ugu dambeysay ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ku soo biiray kooxda Chelsea isagoo kaga soo biiray dhanka Barcelona, laakiin xidiga ayaa qabay dhaawac dhanka daanka oo ka soo gaaray markii ay tuugo u dhaceen gurigiisa ku yaala magaalada Barcelona. si walba haatee Chelsea ayaa Aubameyang u sameysay qalab uu ilaaliya daanka si uu u ciyaaro kulamada isla markaana uu uga qayb qaato tababarka kooxdiisa. sidaas daraadeed Aubameyang ayaa tababarka buuxa la qaatay saaxiibadiisa cusub ka hor kulanka ay la ciyaari doonaan Dinamo Zagreb, kulan ka tirsan wareegga guruubyada tartanka Champions League. xidiga Aubameyang ayaa la filayaa inuu qayb ka qaato kulanka caawa Champions League isla markaana uu ciyaaro kulankiisii ugu horeeya ee Blues. tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ka hadlay fursadaha Walker iyo Stones ee kulanka caawa. daafacyada Manchester City John Stones iyo Kyle Walker ayaa seegi doona kulanka Sevilla ee tartanka Champions League sida uu xaqiijiyay tababaraha kooxda Barcelona. labada xidig ayaan u safrin dalka Spain iyagoo laga reebay liiska xidigaha Manchester City u safray Sevilla si ay uga qayb qaataan
kulanka ka dhici doona garoonka kooxdaasi. Daafaca midig ee Manchester City Kyle Walker ayaa dhaawac uga baxay daqiiqadihii ugu dambeeyay kulankii Aston Villa xilli sidoo kale Stones uu dhaawac soo gaaray kulankaasi. Kooxda Manchester City ayaa hore dhaawac uga maqnaa xidiga daafaca dhexe ee Emerick Laporte kaasi oo dhaawac jilibka uga maqnaa kooxdiisa. Manchester City ayaa la filayaa in daafaca Emerick Laporte uu taam u noqdo kadib fasaxa xulalka ee dhamaadka bishan haatan lagu guda jiro. Liverpool ayaa haatanba dooratay xidig ay u dhaqaaqi lahayd suuqa January. Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in haatanba ay bartilmaameysatay xidigii ay January u dhaqaaqi lahayd si ay ugu xoojiso qadkeeda dhexe kooxda qaybta dambe ee xilli ciyaareedkan. Liverpool ayaa waqti dambe suuqii xagaagan u dhaqaaqday inay la soo saxiixato xidig qad dhexe iyadoo lala xiriirinayo xidiga badan oo qad dhexe. Xidiga Moyes ayaa ahaa bartilmaameedkooda koowaad ee Liverpool laakiin Brighton ayaa diiday inay iibiso xidigan sabab la xiriirta inay ahayd waqti dambe oo suuqa. Liverpool ayaa maalintii ugu dambeysay suuqa la soo saxiixday xidiga Artemelo kaasi ay ama kala soo wareegeen kooxda Juventus. Sida laga soo xigtay wargeyska Terra Deportes, kooxda Brighton ayaa Liverpool u sheegtay inay diyaar u tahay in ay ka iibiso marka la gaaro suuqa January ee bilowga sanadka cusub. Raheem Sterling oo isku qori kara taariikhda Champions League iyo xidigaha uu rikoorkaasi kula biiri doono. Xidiga Raheem Sterling ayaa isku diyaarinaya in uu Chelsea u ciyaaro kulankiisii ugu horeeyay ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Raheem Sterling ayaa Blues ku soo biiray suuqii xagaagan kadib markii uu isaga soo tagay kooxda Manchester City oo sanado badan u ciyaarayay. Xidiga Chelsea ee Raheem Sterling waa kooxda saddexaad ee u ciyaari doona tartanka Champions League ee kulanka caawa. Raheem Sterling ayaa noqon doona xidigii shanaad ee Champions League u ciyaara saddex kooxood oo kala duwan. Xidiga ugu horeeya waa xidiga Benayouna wuxuu soo ciyaaray kooxaha Arsenal, Chelsea iyo kooxda Liverpool. William Gallas wuxuu soo ciyaaray kooxaha Arsenal, Chelsea iyo Tottenham. Xidiga Kole Toure wuxuu soo ciyaaray kooxaha Arsenal, Liverpool iyo Manchester City. Xidiga David Batty wuxuu soo ciyaaray Blackburn, Leeds United iyo Newcastle. Xidiga Raheem Sterling wuxuu soo ciyaaray kooxaha Liverpool, Manchester City iyo kooxda Chelsea. guud ahaan waa naga inta barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe, share, barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. mahadsanidina.